kusoo dhawaada kilibkan waa kilibkeennii labaad maanta ay bishu ay tahay 28 bisha Febraayo 2022 waxaanu ku qaada dhigi doonaa qobanaheena maanta ama kilibkanba uu daaran yahay waxaan diirada ku saareynaa Siciidani iyo Aranjan iyo hadwa la ku leeyahay maarta duulaankoodii Boosaaso waxyaalihii laga dhaxlay waxyaalo saasahan maarta diirada saareynaa waxaan kaloo maaragtaa qodobkaas aan raacinayna qodobka oo weyn oo dabcan sida asagu naftirkiisa taabic Allah qodobkaas oo ah kursigii maaragtaa ninka la yiraahdo Jamaal oo ah wasiirka qorsheynta ee qaranka ama dawladda dhaxaba Siciidan waxaan ognahay dhowr bilood ka hor inuu ku duulay magaalada Boosaaso isagoo maaragtaa hadwa la ku roon yahay boor isku qarin uga dhiganaya leeyahay ciidamada BSF hogaankooda ama taliyahooda محمود ديانا أيان بدلي أما أنبا بدليا وإنه ماشي كتجا طبعا ديك فربضان بهالك خداتي إلا دي مشت طبعا تنقف ومارت عيدا الشعب بيسوجره أيام مارت هالك مارت اللي جسورية واللي جد ديوان قلي وحكى له مارت هالك جري دعوية فربضان قح بركع هنتفر برتي وحاسو خسارة هودن ودي طبعا ملايين دولارنا مارت كبضان أيها هالك كذا شيء لأجل كلية نكاسا بدليا سقوا هيا wuxuu ninka bedelay ama u digdam lahaa kaliya waa 16 kursi ee magaalada Siyaala wuxuu maaragtaa boodo dhacbade tabar ayaa u dan sheegto meeshii maaragtaa watii lagu baabiyay asaga ciidankiisaba magaaladii maaragtaa dabcan BSF iyo dadka shacabka iswata watay u hareen watay soo saareen nimanka la yiraahdo maaragtaa nimanka hoggaanka waa dhaqanka oo boqor burhaan ninka maaragtaa ugu magacaaban ama maaragtaa boqorka guud ee daaroodka iyo isimada maarta gobolka ay soo wada saareen ayagoo 5 ama 6 ee baaqiyo laba qaybood ah midkii koowaad dabcan lagu sheegay in Maxamed meesha ka tago oo meesha dabcan ayaguna ay meesha leeyihiin mar kale ayay shireen markuu taas diiday oo duulaanka waxa ku socday shir kale ay qabteen isimadii oo boqor burhaan horkacayo oo ayuu ku sheegaya in Maxamed meesha uu joogaba tii horeba maarta ka daro dibi dal mid ah ayay waraaqay soo saareen waxaasoo dhan waa dulmar hasa ahaatay waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo fahamka qodobkan oo ah Siciidani 16 kursi wax xal kama gaarin magaaladii waxay laba shir ayaa dhacay markii hore ayuu maaragtay markuu magaalada soo galay dabcan asagoo safar dheer oo maaweelaha oo dadka indhihiisa isaga sii jeedinaya soo galay ayuu magaalada Boosaaso yimid telefoon u soo diray boqoradii isimadii ayagoo isagoo dhahay mid igu yimaad dadkaas la yiri annagu dad uma tagnee annagana loo yimaad dabcan markii hore asaga tagay isimadii la fariistay isagoo marka dhoola cadeen been hadee maaragtaa wasoo naftirkiisa lagu la taliyay inuu dhoola cadeeyo dagaal meesha Boosaaso waxba ugu qaaday ayuu maaragtaa sameeyay marka la hadana maaragtaa ayaguna wada markoodii tagaan dabcan waxa xusid mudan oo hoos ka xariiqayna oo ilaah maaragtaa wargalahay noo sheegayaan in waxa maaragtaa haba yaraatee aysan isku raacin dani iyo maaragtaa isimada maaragtaa dad la kuro boqor burhaan oo horkacayo ama maaragtaa gobolka bariba hadwa la ku roon yahay waxa maaragtaa halka maaragtaa ka cad iyagu taageerayaashiisa Aranjanba waxay suuqa soo galiyeen in heshiis dhacay maadaama laba fadhi la yeeshay oo fadhina dani tagay fadhi isimadan oo fadhi ugu yimaadeen fadhigiisa labada siishin la sameeyay maaragtaa wax xal kama imaan isagoo la rajeynayo maalinta bariya ama maalinta xigtaba inuu Dubai u duulo isagoo maaragtaa hadwa la ku roon yahay kana waliya maaragtaa hadwa lacagii uu ku tartamay maadaama kaabiga ay soo fuusho doorashadii asagoo wali wuxuu ku safri doonaa asagoo xal u helin magaalada Boosaaso oo wali dabcan dhufays maadaama dhiigiina yaalo dhufaysina la isugu jiro cid walba waa ogtahay dabcan asagoo wax xala u hayn ayuu ka dooli doonaa magaaladaas waxaan raacinaynaa Jamaal oo ah wasiirka qorsheynta qaranka ee dawladda dhexe maaragtaa in suldaankii asaga sida qaaska u matalayay inuu maaragtaa hadwa la kuro Siciidani iyo Aranjanba uu ka qaato shilimaad uu maaragtaa dawladda ku dhaafsaday sharaftii karaamadii iyo suldaannimadii uu maaragtaa uu heybada u lahaa isagoo lagu maaragtaa loo gatay inuu kursigaas dhaafiyo Jamaal asa ahaatee markii qaraxu dhacay ayaa waxa dhacday isimadii lagu beegtay maaragtaa dawladda Siciidan ninka la yiraahdo Jamaal ama maaragtaa beesha warsangeli lafteeda maaragtaa jilibkeeda dubayska nimanka loo yaqaano ayaa wuxuu ka qayb galay duugtii isimadii waaweyneedo halka maaragtaa lagu maaragtaa lagu xasuuqay oo halka maaragtaa qaraxa uu galaaftay wuxuu ka sheegay ninkii maaragtaa suldaanka uu ahaa ama saxiixa lahaa kursiga Jamaal uu rabo
wuxuu yidhi dabcan anigu lacag ma qaadan awalna dabcan waa dhuumanayay oo burco ka yimid oo ka soo laabtay waxaa la yidhi saxiix ma wuxuu yidhi rag ba u saara 10 raggii 10ka ahaa ee loo saaray kursigaas inay ka soo tala bixiyaan ee beelahaas ee rag waaweyn ee suldaamada ah waxaa dhacday in 9 ka mid ah ay isku raaceen kursigan la siiyay Jamaal halka mid ka midna uu diiday markii de waa aragtaa waa maaragtaa hal maaragtaa diidaysa de harag meel daldaleesha ka aytaa waxa nimankii odayaasha waxay sameeyeen wuxuu yiri ninkii markii dib ugu soo laabteen taladii ay yiraahdeen anagu 9keenana waa isku raacna waa saxiixna midkaana waa nagu diiday ayuu wuxuu yiri waa kama jiraan maadaama 10kiina isku raaci weysay adduunka suurtagal ma aha 10 qof meel isku tagtay in maaragtaa ay isku wada raacaan wax suurtagal oo aqliga galaya ma de maaragtaa abuurka ilaahay adduunkaana meelna kama soo gasho oo wax maaragtaa la sugayo ma 9kii nin oo majority-ga ahayd ayuu halkii nin maaragtaa isagoo ku duraya uu yiri Jamaal malaha kursigan oo kaasaas uu ku waayay maadaama 10kiina isku raaci weysay maaragtaa mar labaad markay tageen hadana soo tashadeen ay soo laabteen ayaa wuxuu isku gadaamay ciidan oo sheegay maaragtaa inaan loo gali karin suldaanka ninka saxiixa kursigaas leh khiyaaray maaragtaa qodobadaas wixii ka soo kordha waan arki doonaa hadii alla siciidani inuu san boobi karna wuu arkay kuraasta boosaaso sababtoo ah ciidan maaragtaa qabaa'ilkan meelahan degan nimanka la yiraahdo Ciisa waxaan dhilaa Cismaanka oo asagoo ku dhashay boosaaso area degan marnaba waa diideen in kuraastooda dabcan la boobo iyadoo in badan awalba la boobi jiray sidaas la mid ah degadda boosaaso 17% ka maaragtaa waa in laga jara magaalada boosaaso lagu horumarinayo waxaas oo dhan waxa weeyaan caqabado uu asagu soo kordhiyay markii laga reebo khasaarihii nafeed iyo maalkii meeshaas uu ku baabiyo taladiisa lagu baabiyo khiyaaray sii sheer gareeya barnaamijkeenan ayaan salaameynaa